habeen wanaagsan oo wacan dhammaantiin soo dhowaada saaxiibayaal halka waa Somali Finance Club madal dhalinyaro Soomaaliyeed habeen walba iskugu yimaada madashan quruxda badan leh si ay uga wada hadlaan suuqyada cryptocurrency stocka forex iyo dhammaan waxyaalaha la tacalluqa financial digital marketka iyo wax kasta oo financial si guud soo dhowaada maanta waa maalin salaasaa 11 bisha 10aad 2025 saacadu geeska Afrika oo 9 habeenimo halkan waa Somali Finance Club waxaan isla falanqeyn doonaa muddo hal saaca niishada suuqa update-ka suuqa waxyaalaha la sugayo iyo waxyaalaha cusub ee ku soo kordhay financial marketka iyo dhaqaalaha caalamka adduunka first waxaan u mahadcelinaynaa walaasha Rayaan inoo soo furto space-ka habeen walba waqtigeeda ku bixisa madaashada SFC qofaan hariya habeen daaleyn allaha noo daayo waa mahadsan tahay baan leenahay Mrs. Rayaan wallof walaalo sidoo kale asxaabta kale waa salaamaya sida quruxda badan mar walba noo soo ajiiba noo soo maqla noo imaada waqtigooda iyagana ku bixiya waa mahadsantiin baan leenahay waxaan u jeedaa Xaliimo Axmed Garaad waxaan u jeedaa Amina walaashin Amina soo kayadana salaamaya dhammaan asxaabta kale marka asxaabta first retweet sameeya si ay barnaamijka asxaab badan inoogu imaadaan sidoo kale share gareeya commentiga ku soo qora #SFC xagga saraxa soo saareen YouTube-kii miskiinka yar ku yaaca niyuusadii waxa update-keeda dhaafa sidoo kale grouptan ayaa xagga sare saaran oo ka dhiman tahay muddo 2 week ka yar isagana hore isu diiwaangeliya marketka xaaladiisu waa iska consolidation marna waa up marna waa down laakiin saacadii u dambeysay waxoogaa waxaad moodday suuqa in lacag fiican soo gashay ilaa 3.82 trilyan baa la geeyey walow hadda la soo yar celiyey bitcoin oo kale 113 baa la geeyey ethereum oo kale 4200 ku dhaweyd Solana 200 bilyan ku dhaweyd 196 ma laga soo celiyay laakiin hadda xogaa BTC 112 kuma maraysaa Ethereum $4,020 3.78 trilyan baa market cap ku maraya 210 bilyan oo dollar ayaa soo galay volume-ka ilaa 30% uu kacay BTC dominance uu sii kacaya 59.2 caawa maraya wali waxaad moodaa lacagteena BTC ay ku noqonayso oo la dib loogu celinayo so update-kaas suuqa jira waxaan arkay madaxweyne Trump mar dhaweeyta hadlay oo hadal jeediyay sidoo kale FMC-ga maanta Fedka iyo waxaas waxay ku mashquulsan yihiin inay sameeyaan qaab cusub oo payment account shirkado badan baa isku yibi so waan daawanay arrintaana waan ishaan ku hayaa suuq badan baa maanta la selgareeyay BlackRock waxay selgareysay BTC badan bay iibisay sidoo kale waxaan arkay ninkii maxay toolay SpaceX Master Elon Musk maanta BTC badan buu isna wallet kale u wareejiyay baryahana dad ka warqabtaan mooyee quantum computer-kiiba aad looga cabsi qabaa butaan baan arkay iyaduna shalay toole BTC-deeda wallet kale badh ka mid ah wallet u kala qaybisay by the way quantum computer waxaan rabaa inaan space ka qabto hadda baaritaankeedii baan ku jiraa danna wuxuu yahay iyo sida looga cabsi qabo iyo tiknoolajiyadaas waxaan rabaa inaan space fiican ka qabto maalmaha soo socda insha Allah marka soo dhowaada saaxiibayaal waxaan madar baan arkayaa Xaliimaan arkayaa Master King Colombia waan arkayaa rabaa inaan xaaladaha Mareykanka aan in badan maxay toole aan ka weydiiyo soo niisada oo kala qaybsan doona walaasha Xaliima ku sharfayaa ka hoostiga ila haysa Xaliima soo dhow niisada naga dabagee walaalo waa dhawahay walaal Khalid aad iyo aad u mahadsan tahay soo dhawaada guys niisadii ugu dambeeyay maanta nishii yara jireen suuqana dhaqaaqeedu sameeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay heshiis ganacsi oo ku saabsan macdanta muhiimka ah iyo dhagaxyada dhifka ah ee reer oo lala galay Australia si loo xakameeyo saameynta Shiinaha ee suuqa macdanta caalamiga ah sidoo kale XRB ayaa ka gudubtay ilaa 2.5 kadib markii retail investors ay ka baxeen suuqa hoose 1.9 taasoo tilmaamaysa hodkii ugu xumaa iyo fursad classic buy oo hadda dhacaysa sida laga soo xigtay sentimentiga Aster ayaa hogaaminaysa perpetual tax volume ranked iyadoo gaartay ilaa 10.6 bilyan 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo si dhow oo xigta Lighter oo leh idana 10.1 bilyan iyo Hyperliquid oo leh 8 bilyan
sidoo kale Tom Lee Bitmain ayaa iibsaday 63,539 ETH oo qiimaheedu dhan yahay ilaa iyo 251 milyan, taasoo ka dhigaysa hantidooda guud 13 bilyan oo ETH ah. BlackRock ayaa iibsaday ilaa iyo 100 milyan oo BTC ah. sidoo kale sida laga soo xigtay Bitwise kaliya 3 ilaa iyo 4% wareejinta hantida ka timaada dahabka una guurta Bitcoin ayaa keeni karta BTC oo laabanta qiimihii hadda uu taagan yahay. sidoo kale in ka badan 106 milyan oo long positions ahaa la liquid gareeyay saacadihii lasoo dhaafay. sidoo kale Binance ayaa si weyn hoos ugu dhacay iyadoo cadaadiska iibka uu yaraaday, islamarkaana maalgashiyaashu doorteen inay haystaan dhowr sida laga soo xigtay CryptoQuant. Federal Reserve ayaa maanta martigelisay Payments Innovation Conference si ay uga qayb galaan madaxda sare ee ka socda Chainlink, BlackRock, Coinbase, Google Cloud, sidoo kale BNY Mellon, Sequoia Barclays iyo Franklin Templeton, ARK Invest iyo Strike. SpaceX ayaa Bitcoin dhaqaajisay wallet cusub markii ugu horeysay tan iyo bishii Luulyo. sidoo kale sida laga soo xigtay Coinbase, maalgashiyaasha 67% ka waaweyn institutional investors waxay rumaysan yihiin in Bitcoin uu gaari doono 130,000 3 bilood ilaa 6 bilood ee soo socota. Sharplink ayaa iibsatay ilaa iyo 19,271 ETH, taasoo ka dhigan qiimahooda guud ee ETH inuu kordhay. in ka badan 250 milyan oo long positions ayaa la liquid gareeyay 24 saac ee lasoo dhaafay. Tether ayaa gaadhay ilaa iyo 500 milyan oo isticmaalo guud ahaan dunida. sidoo kale sida laga soo xigtay Reuters, 115 ka mid ah 117 dhaqaaleyahano ayaa la filaya in Fed ay hoos u dhigaan dulsaarka rate 25 BPS bisha Oktoobar 29-keeda. Federal Reserve ayaa baaraysa qorshe cusub oo payment accounting, taasoo siinaysa shirkadaha crypto iyo fintech fursad ay ka helaan nidaamka lacag bixinta ee Fed Payment Rails. sidoo kale CEA Industries ayaa gaadhay in ka badan ilaa 500,000 oo BNB oo hanti ah, in ka badan 258 milyan oo short positions oo crypto ayaa liquid gareeyay 4 saac aynu soo dhaafnay. Federal Reserve ayaa baaraysa qaab cusub oo kaas oo siinaysa shirkadaha fintech iyo crypto fursad xadidan oo isticmaali karaan Fed Payment Rails iyagoo aan helin xuquuq buuxda oo payment ah. marka qodobadii ugu waaweynaa ugu muhiimsanaa gadaal haddana waxaa soo hadlay madaxweyne Trump oo sheegay kulankii qorsheysnaa uu la yeelan lahaa madaxweynaha Mareykanka laga yaabay inuusan dhici doonin. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. waxyaabihii kale soo kordhina waxaa waaye Ustad Khalid wuu joogaa, walaal Mtrade oo bullish ahna wuu joogaa. marka asxaabta kale soo dhawaada gebi ahaantiina barnaamijka Ritwad Gareeya. madashan waxaa lagu falanqeeyaa suuqyadii maxaa la dhihi jiray cryptocurrency stock marketka inta badan, waxaana joogaan falanqeeyaal dhanka kriptada iyo siyaasadaba ee u fadhido. marka aad iyo aad idinkugu mahad celinayna.